markii la weysaysto kadib waxaa jirto duco la akhristo. laakiin intaan la weysaysanin ka hor duco la akhristo iyadana ma jirtaa. hadday jirtana maxay tahay? haddaysan jirin dadka maxay aqriyaan? ducada weysada kadib la akhristane maxay tahay? faa'iidada aan ka helayo inaan akhristane maxay tahay? وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد دكتور أحمد أنا أبو سلامة وعبد الولي from Canada وكي شو قارتي ألعبتي ما إن شاء الله كتابة قروح بدنا دعوين كدركت بدنا أدوني أقربا marka insha Allah khayr baan ku rajaynaa aniga niyo waan helay khayr Allah ku siiyo faa'iidadoodu way ii bilaabatay ilaahay baa isiyayba ma sha Allah alxamdulillah marka saa u ogow aniga gabadhayda iyo carruurtayda kulli waan isugu tagnay waan wadana ilaahay baa faa'iidadana siiyayba alxamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala ilaha illa darsu jaalmal wadunka ka joogtaan. assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. waa xalaqadii todobaad ama ducadii todobaad oo barnaamijkii ahaa arbaco walba iyo duco cusub, duco gaaban oo aad u qiimo badan oo aan ka qaadanayni kitaabkeenii qiimaha badnaa oo la dhahayay maalin walba farxad ku qorneed 100 duco ka badan carabi iyo soomaali ay ku qoran yihiin. walaalayaal ducooyin badan aan kasoo sheekeynay. maantana insha Allah tacaala waxaan rabaa inaan kula wadaago duco aad u qiimo badan. intaan ducada kuu sheegin waxaan rabaa inaan kuu sheego horta ma jirtaa duco la akhristo intaan la weysaysanin. intaan la weysaysanin duco la akhristo haba yaraatee ma jirto. intaan la weysaysanin hal wax baa la dhahaa weysada intaan la bilaabin bismillah magaca ilaahi baan la sheegaa oo bismillah wax kala duco kala ma jirto maya. wajiga markii la dhaqanayo duco la aqriyo ma jirto maya. gacanta markii la dhaqayo duco la akhristo ma jirto maya. gacanta kale markii la dhaqayo duco la akhristo ma jirto maya. madaxa markii la tirayo duco ma jirto maya. dhagaha duco ma jirto no. lugaha duco ma jirto maya. duco la akhristo weysada ka hor ama dhaxdeeda oo nabiga ka sugnaatay ma jirto. qofkii haayana ha soo qoro meeshan ha soo geliyo. laakiin ma jirta jawaabta waxaa waaye maya. wuxuusan nabiga sameeynin waqtiga ha isaga dhuminin khayr Allah ku siiyo. wuxuusan nabiga sameeynin waqtiga isaga dhuminin because for sure waxa waqti baa ka dhumay laakiin ajir kuma helaysid. why waxa ajirka ku helaysid xabiibkaaga Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa ku sheegay sida loo sameeyo waqtiga la sameeyo iyo waxaad ku helaysid. hadduu nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sameey waayibo ma adiga alifanaysid ma alifana. laakiin ani qofaan ka maqlay qofka ka maqashay miyo intuu ka keenay asna qofka loo soo final shaytaan uu ka soo maqlay ducada oo akhrisanaysid ha noqoto duco saxiix. ma jecli ducadan kana ku helaysa oo saxiix ahayn. ducada aan ku soo gudbinayo oo yaraan waa inay ahaato xasan. saa ognahay ducooyinka ama ahadiita nabiga sallallahu alayhi wasallam cilmi ahaan u qaado ka sugnaatay waxa way ku saxiix. saxiix macnaheedu waxa way qofka hadlaya mala. saxiix waxa ku xiga marka saxiix li ghayrihi. saxiix waaye laakiin wuxuu saxiix ku noqday xadiidkan kala iyaala ahaan wax saxiix ku noqday. waxaa jira xasan oo level 3 waa wanaagsan yahay xoogo darajada ma soo gaarin wanaag waaye xasan waaye. waxaa kaloo jira xasanun li ghayrihi. xasan waa uu wanaagsan yahay oo wili dhaif ma ahan laakiin saxiix ma gaarin laakiin xasan wuxuu ka li ghayrihi wixii koosay marka meesha soo kalo ma jirto dhaif ama munkar ama wax kala loo isticmaalaa. طيب ani kuwan ku sheegay marka waxa waaye xadiidka ugu hooseeya waa inuu noqdo xasan inuu noqdo insha Allah taala. intaas baan ku soo gudbinaa duca jirta marka oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay in la akhristo markii la weysaysto kadib.
ducadaasna waxay ku jirtaa beejka 19 oo kitaabkeena maalin walba farxad ay ku jirtaa. طيب ducada waxaa inoo warinayo عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين الفاروق يا إنو ورناي رضي الله عنه وحوي قال النبي صلى الله عليه وسلم حبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم وحوي ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أما فيسبغ الوضوء مجر قف إذيك إذين كمد أو ويسيسنايو لكن ويسيسنايو سيدا أوغو فيعان والنبي ويسيسن جيري مالين كستو خميسو بخيو كالا وحان سوقي لنا صلاة إي أحكام تيدا سوقي لنا برنامج كبلاي ليست يوتيوب وحاكو أركي صلاة إي أحكام تيدا سيدا لو ويسيسو لنا ويسيسو حكمي دا شروط الصلاة لي كمي تحي وكسو شاكين يكون قفيري قفكي ساس ويسيستو ويسيدا كحيل ديرادو dadka qaarkood markuu qabo wax jiro biyo sansaan wali wajiga sansaan soo leeyahay maya ina si fiican u weysiisatida loo baahan shardiga koobaad waaye ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء أما فيبلغ الوضوء قفك ويسي ميل في عن كحل إيران سفي عن ويسي سنة كدبنه ضحايو أورانايو دعادان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتس بس توحيد صمها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مجرو قف ويسي سنايو سفي عن ويسي سنايو كدي من الدعاء أقري سنايو إلا هدو جرو قف كاس سديد الباب وجنو أيا لوفوا هذا هذي سديد الباب أو جنو أيا لوفوري أنيقا مو كدهنيا حبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء كو ربو كو دونو كقلا وحاجرتو لبدعو أو لا أقرستو ويسدا كدب مركي لويسيشتا كدب دعاداس هدا أقرستت ورقضا لغو قراء عرشي الرحمن أكتيسا لغو لغا لما نفرايو إلى مالنت قيامة أديك آتمادد الله أكبر دعوين كاس أما الدعاداس أما لبضاس دعا محيهين سان أو أقرستو مركزتو أو آن ويسيست الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لهان إلهي درتي سجاله ميل والبأدونك أتك جوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودعادي سديدات أما حلقة سديدات وبرنامج هيها 4 والبئيو دعاء عصب دعاء قابن أو آت وقيمة بدن وأنك قادنيني كتاب كيني قيمة بدنا أو لدهاي مال والبفرحات maantana waxaan qaadanaynaa 2 duco oo ku saabsan weysada markii la weysaysto kadib labadaas duco maxay yihiin halkayna ku jiraan walaalayaal ducada labada duco waxay ku jirtaa beejka 20aad ayay ku jirtaa oo kitaabkeena maalin walba farxad ayay ku jirtaa maanta 2 duco rabinaan kula wadaagana ducada koobaad waxa waaye allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin اللهم اجعلني من التوابين إلهي وحائقا لكتا دادك مركزتو كو توبت كينو كو صور نقض وويسيست سوما جيدت مركا ويسيست كدي بعدين اللهم اجعلني من التوابين إله إيقا لك دادك مركزتو كو توبت كينو وحاكا إيقا لكتا واجعلني من المتطهرين دادك مركز إصطاهرين إله إيقا لك دعانا محي كو جرتا سيحت المدية كو جرتا إن شاء الله تعالى قفكي ربو وكرات سنكرا دعاء كلا أو رومانتنا حوق صارناني أو دعاء السدحات لا أقرس ويسد كذب وحواي رسول صلى الله عليه وسلم وحوليه هي قفكي راه الدعاء واتنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قفكي له سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قفكي راه رسول صلى الله عليه وسلم وحوليه كتب في رق وحال لوغو قرا رق ورقضا لوغو قرا أما كان ورقضا أو قوح لوغو قرا ثم طبع بطابع
kadibna waxaa loogu taabaca ama loogu dhejina loogu tiimbarayna ama loogu qabana waxaa waa taabic. riwaayo kale waxay leedahay carshi raxmaanka agtiisa la dhiga. kadibna wuxuu yiri rasuul sallallahu alayhi wasallam falam yuksar ila yawm alqiyaama, mana la jibinayo oo lama furayo ilaa maalinta qiyaamo. ducadan qiimahay leedahay kaliya. xadiidkan asna waxaa wad nisaa'i ku jira, irwaa al-ghaliilna wuu ku jira. walaalayaal labadan duco iyo ducadii aan soo gelin isbuuci la soo dhaaf waxaa ku helaysaa fi 8 albaab janna lagu furay. tan labaad aad ka helaysid waxaa waa subhanaka allahumma wa bihamdika, ilaaha nazahiisa. ducada meel kale lagu aqristan waa jirtaan haddaa xasuusataan, waa markii ijtimaaca ama fadhiga laga kaco ayaa la aqristaa. dad markay meel ku wada kulmaan ay aqristaan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk. waxaa leedahay subxaanaka allaahumma wa bixamdika, xumaanoo dhan ilaahow adigaa ka nasahday. allaahumma ilaahayow wa bixamdika, waana kuu mahad celinaa. subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta, waxaan qira axad xaq lagu caabudo ma jiro oon adiga ahayn. ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayka, ilaahow dembi dhaafna waan ku weydiisanaa waana kuu toobad keena. waxaa jirto 4 aadaab loo baahan yahay inaad samaysid intaadan weysiisanin iyo markaa weysiisanaysid, iyo 5 faa'iido oo aad ka helaysid haddaa samaysid 4 arrimood aan soo sheegnay. haddaba 4 arrimood oo aan liiga baahan yahay inaan sameeyo weysada dhexdeeda ka hor ama kadib, iyo 5 faa'iido aan ka helayo 9kaas arrimood. tan ugu horeeya lagaga baahan yahay waxaa waaye markaa weysiisanaysid intaadan weysada bilaabin, markaa soo istaagtid rabtid aa weysiisatid waa soo niyeysatid, waxaa leedahay marka bismillaah. bismillaah keliya maa leedahay mis bismillaahi araxmaani araxiim waa dhihi kartaa. imaam an-Nawawi rahimahullahu tacaala wuxuu leeyahay qofka bismillaahi araxmaani araxiim inuu yiraaho wax dhimala. bismillaahi keliya haddaa ku gaabsatidna okay waaye, bismillaahi araxmaani araxiim inaad tiraahidna okay waaye. culamo qaarkood aa diidan dhahayo kale bismillaah rasuulkiina bismillaah keliya ku ekaato. culamo qaarkood waxay in la dhamaystiro wax dhimala. haddaa bismillaah ku ekaato khilaafka ka baxdidna okay waaye, haddaa dhamaystirtidna wax dhib haba yaraatee ma jirto biidni illaahi tacaala. arrinta labaad oo lagaaga baahan yahay waxaa waaye ku dadaal inaad si fiican u weysiisatid. markaa weysiisanid saa ajirka ku heshid si fiican u weysiisad. markaa weysiisanid faraha saan oo kale isu dhexgeli. markaa dhexgelinaysid markaa weysiis si fiican, markaa gacmo kaga dhagay saasoo kala sameey. weysiis si fiican u weysiiso oo korkaaga meel walba gaarsii. qabqabqab ha ka siinin. wejiga si fiican u dhaq, gacan si fiican u dhaq. arrinta saddexaad lagaaga baahan yahay waxaa waaye markaa weysida dhammaysatid ducadan soo sheegnay aqriso. ducooyin 3 ducaan soo sheegan soo maaha, aqriso insha Allah tacaala ducooyinkaas ha iloobin. tan afaraad lagaaga baahan yahay waxaa waaye markaa weysiisatid kadib 2 ragcad tuko. nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam maalin bilaal ayuu arkay, wuxuu yiri bilaalow jannadan ku arkado ku jirtay maxaa samaysaa oo ku gashay igaga hormartay. wuxuu yaa rasuul waxba ma sameeyo ilaa wuxuu yiri markasta weysada iga jabtana waa weysiistaa, markastaan weysiistane 2 ragcad tukada. idan kamid noqo dadkaas insha Allah tacaala. mar walba weysiiso, markaa weysiisatidna 2 ragcad tuko saad u heshid ajirkaas khayr Allah ku siiyo. 4taas arrin waa 4 arrin lisaga baahan yahay intaadan ama markaa weysiisanaysid ama intaadan weysada la imaanin ama markaa dhamaysid. 4taas arrin haddaa samaysid waxaa helaysaa 5 faa'iido helaysaa. 5 faa'iidaan ku sheegay si fiican u dhageyso, khayr Allah ku siiyo. faa'iidada koobaad aad ka helaysid haddaan arrimahan kuu soo sheegnay samaysid waxaa waaye waa lagu dambi dhaafaa. nacam waa lagu dambi dhaafaa. axaadiis badanaa ku soo aroortay. rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu qofka markuu weysaysto weysada weysiisanaya biyaha daadanaya dembigaaga raacaysaa. waxaan kaloo soo sheegay rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka hadduu weysaysto 2 ragcad tukada uusan naftiisa la hadlin waa loo dambi dhaafaa. salaat tawbaan ka soo sheegay qofka markuu weysaysto 2 ragcad tukada waa loo dambi dhaafaa. fiir markas weysay ku xiran tahay. idan faa'iidada koobaad helaysa daasaan ku soo sheegay samaysid waxaa waaye waa lagu dambi dhaafaa. ilaahna wada dambi dhaafo dhamaanteen amiin. faa'iidada labaad helaysid waxaa waaye Allah ayaa ku jeclaanayo adiga. nacam ilaahay ayaa ku jeclaanayo waana waxaan la heli karin.
برنامج سنين تأنصود دين وقالت أعمال إلهي كوجع لنا أعمال إلهي كوجع لنا إذن إلهي سبحانه وتعالى وكجع إلهي وحر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هذاك المتطهرين تسوقش مركو ويسي سنة ويسي بدنا يسوقش إلهي كوجع لنا ويسي بدي هإلوب خير الله كسيه فإذا سدحت أهلي سد وحاواي جنة ميل أو قصر ضدك السر ماشي قلانا كجليسة ميل صاروخ أي جنة كجليسة جنة سانسو شيغني وحاواي درجات واي نارتنا وحاواي دركات واي درجات جنة الله كروي ما أنت ماشي أنا جوكتا قف ماشي أنا جوجا قف ماشي أنا جوجا قف حالا سحدي جمرك أركيس وكلو أركيس وكلو أركيس قف كاسياوي هبل وايل ولما حوكو جاري ماشيس قرآنكو أقرسن جري ويسيسن جرو لوركو تكن جري إلى أساس وجودن بالآخر تن أفراد هلي سدوا حواي سبديد الباب جنة أيا لغو فرع كأدي رتداك جليسة والدعاء لكم هذا كسوشيكين وعمر الخطاب رضي الله عنه ومسلم كجري وصحيح مسلم كجري قفك الدوي راهضو مركويسي سفي عن أويسي استلاكين كدبنا أقريب أذكارتي أقريب فتحت له أبواب الجنة الثمانية سديد الباب جنة لو فرع كارتك قال لي ستهجم نقطتي خير الله كسيه وحاسم ما يسد عنا أقرأ سديد أرما أفرت أرنقص وشيء نسميه فإذا دشنات وحات هذا الشتاء شهادة أي النبي صلى الله عليه وسلم كهاي ستا أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يحافظ على وضوء إلا مؤمن هدا أرهتت قف مركزت كد ذالايو إنو إلى ليويسدا بلال وكلا رضي الله عنه markastay weysada ka jabto uu weysiisan jiray markastuu weysiistana 2 ragcoo tukan jiray 2 ragc inaad tukatid extra faa'iido ku siita jannada ku sii gareysaybo laakiin inaad shahaado heshid oo nabiga ka heshid oo rasuul sallallahu alayhi wasallam mu'min kugu magacaabo waxa laga rabaa waxa way markastay weysada ka jabto inaad weysi hatta markaas yaxaniisa weysiisida loo baahan yahay wala yuhaafidhu ala wudu إلا مؤمن جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى إيه وذا حفظيه دنبيجيني كينا بالله دافيت كد ذال سجال كان أرمود أفرت أرمود أسميني سيد شنتس فائدة كويس سجال ما أفر أرن كلي على جباهنا أسميني سيد شنتس أرمود هيليسه خير الله يدين سيد جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إليه درس يجعلها